بسم الله maanta waxaan ugu soo booqday Muqdisho xubno ka tirsan golaha ammaanka qaabilsan cunaqabataynta Soomaaliya oo hogaaminayo safiirka Kazakhstan u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Umarov gudiga waxay qayb ka ahayd inay u korgalaan xaaladda Soomaaliya iyo cunaqabataynta hubka saaran Soomaaliya heerka ay marayso iyo guud ahaan Soomaaliya horumarkeeda xagga dhaqaalaha xagga amniga iyo xagga amniga iyo nabadgelyada iyo xagga horumarka loogu socdo geedi socodka doorashooyinka iyo soo noqoshada kaabayaasha qarannimada Soomaaliya gudiga markay yimaadeen maanta waxay la kulmeen booqasho gaaban ugu tageen salaana madaxweynaha asagana kala hadlay arrimaha Soomaaliya kadibna waxay la qaateen fadhi dheer ra'iisul wasaaraha oo u sharxay xaaladda Soomaaliya ka timid iyo halka ay marayso iyo halka ay u socoto su'aalaha qabaan waa weydiiyeen si fiican oo isfaham leh oo ku soo dhamaatay shirka.